السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada barnaamijkeeni inooga bixi jiray bidhaan studio ee magaalada Yonsho binawada kan Sweden oo alaaba nooga barateen inaan ku wareysano waxgaradka iyo qurba joogta Soomaaliyeed ama aan idhaahdo geeska Afrika oo uu maanta noogu yahay marti Axmed Cawil Jaamac Caare kusoo dhawow Axmed barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبدان استاديوم والسلام يا شغالين سبع وانا دوحي أحمد waxa aanu doonaynaa maanta inaanu wareysi yar aanu ka weydiino bal xaaladda guud ee Somaliland maxaad kala socotaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة بعد بان السلام يا شعب كالصوماليات ميل كستو اي جوغان iyo qurba iyo qolqolba waxaan salaamayaa Somaliland nawa salaamaya haddaan Somaliland eegno Somaliland xaaladeedu sidoo sanadood ama 28 soddon baa la yiraahdaa ayay magaca Somaliland ku dhawaaqday 1991 marba jiitan bay soo gashay 10 sanadoodii ugu dambeeyay waxa la islahaa waxay tagaysaa meel fog waxaad moodaa in ay hadeer gaabis tahay haddii arrimaha dawladda tahay iyo haddii arrimaha gudaha tahayba waxaad moodaa gaabis in uu ku yimi iyo kala tafaraaro Axmed haddii aad halka tafaaruq noogu noqotid maxaa Somaliland ka qaldamay aad adigu gaar aad aragtaa markii aan eego dimuqraadiyad aanay garanayn ayay qaateen xisbiyo badan ayay sameeyeen xisbiyadii ayaa magac xisbina loo sameeyay xisbi qabiil laga dhigay waa gartay marka adigu sida ujeedada guud hadaynu eegno ma waxaad ka wadaa Somaliland kumaba wanaagsana doorashooyinkan tartanka ah ee one man one vote ka lagu sameeyo oo waxa leedahay hab kala ka wanaagsan anigu waxaan leeyahay habkani dhibaato inoo geystay Somalilandna korobkaceedii dhibaato u geystay dhaqaalaheedii dhibaato u geystay qaabkeedii isku xidhnaan bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi dadkii reer Somaliland ee walaalaha ahaa ee ku jiray xisbiyadani waxay u keeneen tafaraaruq kala tag iyo xumaan buu u keeneen waxaad moodaa in ay ka wanaagsan tahay baarlamaanka inuu doorto madaxweynaha oo ay isu sharaxaan waa gartay Axmed Mareykanka oo kale ama adduunyadan oo kale waa gartay Axmed hadeen halka ku yara noqono Somaliland ma waxaad yani wixii intaas oo dhan la soo socday ee sida wanaagsan u socday markii hore sida ay guud ahaan uu caalamku waynu ognahay waxaad leedahay ha laga guuro miya adigu markaas soo ha lagu bedelo qaabkan isteediyada Soomaaliya ama Soomaaliya wax loo doorto laba arrimood ayaan leeyahay in looga guuro oo ay dawladdu ku jirto si ay dadku u sinmaan kow in baarlamaan uu doorto madaxweynuhu oo baarlamaanka iyo xisbiyadu uu ku soo baxo madaxweynuhu si aanay dadku aanay cunsuriyad kale loo qaadin oo qabiil loogu waxayn taasi waa mid ta kale waxaad moodaa dastuurka Somaliland in uu leeyahay beesha dhexe waa gartay halkan halka beesha dhexe ku joogno adigu maadaama aad ku jirto Somaliland marka la sheegayo laba qaybood loo qaybiyo darafyada iyo balayada iyo dhexda adigu waxa tahay beelaha dhexe ee Somaliland-ga marka ma يعني سيد برسينيو أيها دركتها بيش الحين سمين سمسي بيش الحين لفتر كذا أيها دباته أي بيش Somaliland la sheegay waa beesha dhexe ayaa sheegatay saddex xisbi iyaga leh wasiirada ugu badan iyo saraakiisha ugu badan iyo beesha dhexe ugu baa aan arkaya beeraha darafyada iyo kuwa dhexda ku jiraba ay ka mid yihiin reero badan oo ilaa yaala dadka Soomaaliyeed dego oo dhami Somaliland way degan yihiin maadaama ay Somaliland tahay dimuqraadiyad la yiri waa la qaatay qof walibana uu xor u yahay inuu iska sharaxo oo xisbigu soo kaxaysto xisbi hadduu shuruudaha markaa meesha la buuxiyo beelaha darafyada ama dadka Somaliland degay kala beesha dhexayn ma xeer
ka xanibaya in iyagu xisbiya samaystaan oo Somaliland ay ka mid noqdaan asxaabteeda ayaa jira marka dastuurka eegtid waxaad soranaysaa ha oo ururkii SNM dadkii ku abtirsanayay ururkii SNM ayaa de wad arkaysaa mar yar oo 5 sanadood ama 6 sanadood oo madaxweynihii dhintay Allah uu naxariistay looran jiray Maxamed Ibrahim Cigaal uu ka dhinto dastuurku uu ogolaa madaxweyne ku-xigeenku inuu qabto oo doorashadan iyo baarlamaanteeriga doorashadiisa ka deegaanka iyo madaxweynaha qabto oo ugu horeysayba daahriyaal ka ahayn oo ku dhiiraday in uu arrintan fuliyo dimuqraadiyadda ah ayaad moodaysay in ay de Somaliland la wada leeyahay ay meesha taalo laakiin hadda Somaliland la wada leeyahay ma taalo Somaliland beesha dhexe leedahay ama kala badsato ama kala yareysatay ayaa jirta waaga hadaynu halka qodobka ku dhaafno bal waxaad ka warantaa dhibaatooyinka ka taagan gobolka Sanaag dhibaatooyinku mar haddii dawladdu dawlad xumo dhacdo oo dawladda ay shaki dawladda ku yimaado ama reerka dawladda xukuumaya ee beesha dhexe la yiraahdo si kastaba ha u kala haysteene beelihii darafyadu iyo kuwii dhexda ku jiray ee bini aadamka Somaliland sheeganayay ee dhaxadka ku jiray Somaliland way ma jacsana oo arrimahoodu ma fiicna sababtoo waxaan ku fiicnayn wixii dee la wada lahaa lama wada lahaa wad arkaysaa wax allaale waxa wasiiraya waxa hogaanaya waxa ciidana iyo wax baarlamaankana 70% waxa la beesha dhexe waa gartay hadaynu halka aynu qodobkana ku dhaafno waxa jira commissionka Somaliland oo bariyahan dambe muran fara badan aad mudooyin u hadeeyay doorashooyinkii qaarna ay dib u dhaceen oo xilligooda ay ka soo gudbeen iyadoo intaaba muran fara badan oo aan marka xaalado kale lagu sababeeyaan jirin maadaama la yiri xaaladun ba doorashada Somaliland dib ugu dhici kartaa waliyo wixii daahriyaal ka dambeeyay wax boodaysa madaxweynaha meesha yimaada inuu kursiga ku aarsanayo waa garta saddex xisbi waa saddex nin oo ilmaadeer ah waa garta hargeysana ku dhashay saddexduba waa garta de umadu ma hargeysa waa garta in mid qaar tanaasulaan bay ahayd oo xisbiga u baneeyaan beelaha kale si ay loo ogaado bal dimuqraadiyada inay jirto waxa weeye madaxweynaha noqon dadku bal inay ku tartamaan sababtoo ah shaki bay ka qabaan beelaha darafyadu in ay Somaliland hadii lagu aqoonsado lafteeda inay sida ka sii hooseynayaan mar horena su'aasha waan ku weydiiyay beelaha darafyadu ma xisbiyadan sidaynu garanayno de niman muwaadiniin oo waddanka Somaliland degan ayaa samaystay xisbi walba hanti fara